السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Soomaaliya maanta waxay u dabaaldegaysaa 66 sano guuradii ka soo wareegatay maalintii Soomaaliya ay xorriyadda ay qaadatay. 66 sano 34 sano oo kamid ah waxay Soomaaliya ay dhexda ka taagan tahay dagaal sokeeye, kala qaybin bulsho iyo waliba faragelin shisheeye. Mana muuqato wada ay Soomaaliya uga baxayso arrimaha aynu kor ku soo sheegnay. Marka la fiiriyo sida ay Soomaalidu maanta u kala qaybsan tahay, waxa la oran karayaa ilaa iyo 10 qaybood oo kala duwan ay markaasi Soomaalidu u qaybsan tahay. Qaar baa Israa'iil u galay, isla markaana amaanaya fagaarayaasha siyaasadana ka difaacaya Israa'iisha xasuuqa ba'an ku haysa shacabka muslimka ah ee bariga dhexe iyo caalamkaba ku nool. Halka qaar kale ay daacad u noqdeen Imaaraadka Carabta oo go'aan walba oo ay gaarayaan u yahay mid laga soo yeernayo dhankaasi Imaaraadka Carabta. Halka caasimadii dalka Soomaaliya ay dul heehaabayaan diyaarada laga leeyahay dalka Turkiga, isla markaasna loogu dabaaldegayo 66 sano guurida ka soo wareegatay xorriyadda Soomaaliya. Macnaheedu waa diyaarado tabalcaara ah ayaa maanta loogu dabaaldegayaa in lagu xuso xuska Jamhuuriyadda Federaaliga ah ee Soomaaliya. Wadacdo ugu waana mid kamid ah waxyaalaha xaqiiqooyinka ah oo Soomaaliya ay maanta dhexda ka taagan tahay. Ma jiro wax ajenda qaran ah oo Soomaalidu ay maanta ka shaqeynayso markaynu ka hadlayno siyaasadda Muqdisho ka karsan, midda Garowe ka karsan iyo waliba Hargeysa ka karsan. Nin walbana barxad yar ayuu kula caawinayaa koox taageerayaashiisa ah, isla markaasna waxa uu doono ayuu u soo sheegayaa. Maanta waa maalintii taariikhdeena ku suntaneed inkastoon isku hambalyeynayno haddana kowda luuliyo inaan xusno waajib bay nagu tahay, haddana laakiin waa maalin farxaddeedu ay naaqis tahay. caawa oo habeen xusid mudan oo habeen taariikh weyn leh oo habeenkii ay dhalatay Somaliland. marka bal saddexdaas barxadood ayaan midba in yar aynu baldul istaagi doonaa. Imara Luxury Homes mar haddaadan Imara guryaha ayaal kumayso in ka iibsanahaynood intifaacsan karayn ma adaaba adduunka raaxadiisaba eegay. Dhismayaasha cusub ee Imara Luxury Homes waxay ka kooban yihiin 2 qol iyo fadhi, 3 qol iyo fadhi, 4 qol iyo fadhi iyo guryo dublekiisa iyo kuwo penthouse ah. Guri kasta waxa uu leeyahay qolkii shaqaalaha, waxaana loo dhammaystiray wax kastoo xaafad gaar ah ay u baahan tahay. Waa 2 dhismo cusub oo labadaba gacanta lagu hayo, dhawaanna soo idlaan doona. Dhismaha koowaad shirkadu waxay ka dhisaysaa xaafadda Parkland, City Park Drive, 6th Avenue, waxaana ku dhow yahay isbitaalka Aga Khan. Dhismaha labaadna waxa uu marayaa dabaqa koowaad, waxaana ku yaala Kilimani, wadada madaxtooyada ama State House-ka ee Deansbury Road. Faahfaahin dheeriya la xiriir ciwaanada iyo telefoonada shaashada kaaga muuqda. ninkan waa Xasan Sheekh Maxamuud oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaaliga ah ee Soomaaliya oo aan haysanin wax mandayda, waqtigiisuna uu ka dhamaaday asagoon la imaanin nidaam doorasho oo Soomaalidu ay markaasi ay heshiis ku tahay. wuxuu xalay uu ku caweeyay barxad ay isugu yimaadeen koox taageerayaashiisa isla markaasna 4 dhinac ka xiran. dadka ku jira la yaqaano, la soo baaray, laguna talagalay in markaasi sawirro qurux badan loo galo. hawada sare ee barxadana waxa dul heehaabaya sidaan idin sheegay diyaarada laga leeyahay dalka Turkiga oo loogu dabaaldegayo xorriyadda Soomaaliya. waa dal aan diyaarada lahayn laakiin ku faanaya guul u arka diyaarada dal kale ay leeyihiin in markaasi loogu dabaaldego dalkooda. laysma weydiinayo haddaanan diyaarada lahayn maxay tahay sababta aan dal kale diyaaradiisa ugu dabaaldegayno. isla barxadan 34 sano ka hor waxaa dul heehaabayay diyaarado ay dowladda Soomaaliya ay leedahay oo aan tabalcaara ahayn. laakiin maanta Xasan wuxuu u arkaa guul weyn oo asaga u soo hooyatay inuu ku dabaaldego diyaarada uu asagu lahayn. calanka buluuga ah ee uu gacanta ku wato madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maanta ma uu haysto midnimo Soomaaliyeed, mana haysto maanada ay Soomaalidu heshiis ay ku tahay sidii aynu sheegnay. wiilasha waardiyeynaya iyo dowladda uu hoggaanka ka yahayna 70% budgetka ay ku shaqeysay waxa laga bixiyaa xerada Xalane. isla xeradaasna waa halka la aaminsan yahay in Soomaaliya markaasi laga maamulo. haddana Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu aaminsan yahay inuu Soomaaliya uu ku wado wadadii saxda ahayd. qofkii ka aragti duwana duulaan ayuu ku qaadayaa ama xabsi ayuu u dhaadhicinayaa sidii hooyadii masaakiinta ahayd ee uu dhawaan u jaray 3 sano ee lagu magacaabayay Sacdi Bajaaj.
marka xataa dowladnimada uu xasan sheekh maxamuud gacanta uu ku hayo ee aan lagu midaysnayn cid alla cidii ka hor timaada wuxuu diyaar u yahay inuu duulaan uu ku qaado isla dowladuna wata aynu sheegnay in halka laga biila ay xalala tahay halka uu ka amar qaataana la oran karayo waa xerada xalana halkaasu waa caasimadda Soomaaliya waan halka looga dabaaldegayo 66 sano guuradii ka soo wareegatay xorriyaddii Soomaaliya ama 1 July dhanka kale halkaan waa Garowe ninkaana waa madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani Siciid waa dhowr qof oo isku dhaxnool marka la akhriyo dhaqankiisa siyaasadeed iyo waliba hadallada uu ka soo jeedinayo masraxyada siyaasadda Siciid Dani mar waa badbaadiyaha Soomaaliya oo wuxuu sheegayaa inuu doonayo inuu xasan sheekh maxamuud uu ka badbaadiyo dhibaatada uu xasan ku sameeyay dawladnimadii federaaliga ahayd ee Soomaaliya wuxuuna leeyahay laguma daawanayo waxa uu xasan ku sameeynayo dawladnimadii heshiiska lagu ahaa ee Soomaaliya marka kalena Siciid Dani waa nin doonayo inuu Puntland ka badbaadiyo ama uu kala cararo Muqdisho isla markaasna Muqdisho wuxuu u arkaa meel aan waxba lagu darsan karin wuxuuna shacabkiisa uu ku boorinayaa inaan Muqdisho la aadinin oo aan waxba lagu darsan dhanka kale marka la fiiriyo Siciid Dani waa siyaasi xildoona oo fadhiya masraxa looga gorgortamayo xal u helista doorashada Soomaaliya oo musharax kamida ragga doonaya inay ku tartamaan xilka uu ku fadhiyo xasan sheekh maxamuud marka 3 ilaa 4 Siciid oo isku dhaxnool weeye ninka Garowe fadhiya Siciid Cabdullaahi Dani marxamar waa diidan yahay marxamar buu badbaadinaya marna waa musharax u socda xamar oo doonaya inuu ka gorgortamo nooca doorasho oo xamar ka dhici doona waqtiyada in soo aadan yahay barxadda Garowe halkaas ayuu uga dabaaldegayaa 66 sano guuradii ka soo wareegatay xorriyadda Soomaaliya marba wuxuu doono ayuuna u sheegayaa shacabka reer Garowe iyo dhammaan shacabka Puntland kaasina Siciid Cabdullaahi Dani dhanka kale marka la fiiriyo kani waa Cabdiraxmaan Ciro oo asaguna ku soo biiray kuwa u dabaaldegaya sanad guurada Soomaaliya maamulka Soomaaliland muddooyinkii hadda la soo dhaafay aad ugu maysan dabaaldegi jirinin xorriyadda Soomaaliya oo waxay hore u sameysteen waxa la yiraahdo 18 May laakiin ayaamahan dambe waxa ka muuqata aragti la yiraahdo ku qabso ku qadimaysidii 26 June iyo 1 July ayaad muddaa markaan inay dib ugu soo laabanayaan oo ay fasiraad cusub ay dusha u saarayaan si walba ha ahaato Cabdiraxmaan Ciro waa saaxiib ka dhow ee Benjamin Netanyahu ninka caalamkii oo dhan dhibaatada weyn geliyay ninka duulaanka ku ah Gaza ninka Iran ee ka hirgel laadahay ninka hariya habeen weeraraya reer Lubnaan iyo waliba ninka muslimka bariga dhexe oo dhan colaada iyo duulaanka ku ah wuxuuna Ciro ku biiray garabka Benjamin Netanyahu Cabdiraxmaan Ciro uu taagan yahay barxad kale oo ku taala magaalada Hargeysa halkaas ayuu asna wuxuu ka soo leeyahay qudusta aynu safaaradda ka samaysanay ma ahan qudusta aad u malaynaysan waa qudus kale oo Israa'iil ay leedahay wuxuuna dhowr u kala qaybinayaa magaaladii Qudus wuxuuna sheegayaa in qayb kamid ah Israa'iil ay leedahay isla markaana wuxuu sheegayaa inay caadi tahay inay safaarad ay ka furtaan oo dawladaha Carbeed oo dhanba ay safaaradaha ay ka furtaan xageenu haddaba safaaradda ka furray safaaradda waxaanu ka furnay galbeedka Qudus oo ah dhulka dhammaan dalalka carabtu aqoonsan yihiin inuu yahay dhul Israa'iil leedahay intaas kumuusan ekaanin oo wuxuu hanjabaado iyo waliba hadalla kulkulul uu hawada u marinayaa garabka mucaaradka isla Soomaaliland oo wuxuu leeyahay hadii aad diidantihiin aqoonsiga Israa'iil jacaylka aan Israa'iil u qabna hadii aad ka hor imaadsantiin banaanka u soo baxa hasqarina ayuu leeyahay adeerkaas socon mayso taasi waxa tiraahdaa ictiraafka ka soo horjeeda ictiraafka badheed shacbiga u sheeg inaad ka soo horjeedo xiriye yeelo waa Hargeysadii oo marka isku haysata kuna heshiin la wixii loogu yeeray aqoonsiga marka saddexdan barxadood markaan midba gooni u fiirino inay iyagu kala taagan yihiin marka laga soo tago waa Muqdisho iyo Garowe iyo Hargeysa mid walba gudaheedii ay maanta ka taagan tahay lamana yaqaan waxa dhici doona mustaqbalka dhow tusaale ahaan oo kale Muqdisho waxaynu ogeyn in muddooyinkii hadda la soo dhaafay dagaal ba'an uu ka dhacay oo ragga maanta sheeganaya in ayagu magaalada Muqdisho leeyihiin daftirkooda ayba ku dagaalamayaan isla gudaha magaalada Muqdisho Shariif iyo Xasan ayaa wali
xamar isku hor fadhiya mar walbana way dagaalami karayaan dhanka kale garowe waxa isku hor fadhiya oo ayaduna maalmihii la soo dhaafay soo xoogaysanayay cabsida laga qabo in jamcaalay iyo siciidani ama asadiyaana iyo siciidani ama rag kale reer Puntland iyo siciidani ay ku dhex dagaalamaan garowe oo cabsidaas ayaa hadda soo xoogaysanaysa oo isla Puntland ayaa markaan laba u kala qaybsan dhanka kale wataynu sheegnay Cabdiraxmaan Ciro iyo waliba Musabixi ayaa hadallo kulkul hawada isku marinaya waxayna isku eedeynayaan eedeymo waaweyn iyo waliba in god lagu riday wixii 34 sano ka hor ay markaasi u dagaalameen marka Soomaalida maanta dabaaldegaysa waa Soomaalidaas xamar waxaaba ka taagan garow waxaaba ka taagan hargeysana waxaaba ka taagan ee la yiri Soomaaliya 34 sano ee la soo dhaafayna waxyaalahaas iyo kuwa ka badan ayaa ka taagnaa gudaha dalka Soomaaliya muxuu noqon doonaa mustaqbalka Soomaaliya waa su'aasha ugu weyn oo cid walba is weydiinayso waxa xaqiiqo ah in ummad ka hartay caalamkii oo aan ka warqabinin caalamkii inay maanta ayagii isku haystaan bogcado cidla ah oo wax yaala aysan jirin isla markaasna ay dhamaantood yihiin kuwa fulinaya ama raka imaanaya dalal shisheeye intaasan ku soo koobaya muuqaalkan adiga daawanaya ma ku muuqata wax Soomaaliya maanta looga dabaaldego madax banaani Soomaaliyeed dawladnimo Soomaaliyeed ma se jirtaa wada Soomaaliya looga saari karayo dhiiqadan dhexda ka taagan tahay su'aashaasna oo midaan ugu talagalay shacabka barnaamijkayga daawanaya assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh